رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء. رمضان يا خير الشهور، رمضان يا رمضان، رمضان يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، وتحنهني لما بحي وسارعوا حلقذني وحلقذي سديد إيطبنات وحي حرير توصل لذهي تيكه الرئيسي إيطبنات وحانها الكدب فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. الله جل جلاله وعبادة لو برحتره خالصا له لو غدغو سبحانه وتعالى، وودد حقه وودد بدبادة إيا إيمانك. إذا أغوين درجة قادنيسا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حال الراعين كراه أولو العزم من الرسل شرع لكم من الدين. دب أقول الله آية صديحة طبناد سورة الشورى هي آية تضباد سورة الأحزاب. وحكو حقي كرا ومضينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله كوي النبي محمد بربر تاقنا عليه الصلاة والسلام. وحكو حقي كرا إن الله إنت وضدي صحابة إيا سلف كراعضي إلى قيام الساعة. isku soo duuduuba ummadda oo dhan rabbi wuxuu ku leeyahay wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin. isku soo daro yuhuud iyo nasaaro iyo muslim iyo mu'min intaba lama amrin ilaa laba arrin ma ahani. koow, in ilaahay keligii ay caabudaan, cibaadadaana ay asaga keligii siiyaan subxaanahu wa tacaala. amarka noocana salafkii oo fulinaya ayaa waxay ahaayeen kuwa ku dadaala sixidda iyo toosinta niyada wanaagsan iyo cibaadada ilaahay in gooni looga dhigo subxaanahu wa tacaala. yaquulu zubayd al-yamaami rahimahullah innii la uhibbu an takuuna lii niyah fi kulli shay xataa fi alطacaami waasharaab. waxaan anugu jeclahay agtaydana looga kalgacayl badan yahay shay walba inaan rabbi ku xidho subxaanahu wa tacaala, xataa cuntada iyo cabitaanka inaan asaga cibaadadiisa ugu xoogaysanhayo oo aan asaga ku caabudayo, nicmadaana aan asaga u celinayo. nabigeena sala allahu calayhi wasallam waxaa lagu yidhi qul ina salaatii قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وحد نبي محمد ونحظى أمتنا أشيكتا صلى الله عليه وسلم أنيق الصلاة دايدا إيا قور عيقا إيا عبادة دايدا نور الشيدا إيا قيري دايدا بمدبالة وأيوا لله ألك نجيبا إسكال سبحانه وتعالى. يقول فضيل بن عياض أحد السلف إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. عملك هديء إلهي درتي لولا تشيدو، لكن وصوددي النبي محمد وافق سنين صلى الله عليه وسلم عملك الله ما أقبله صاحبك الله إمادنا وجهك لك قفن. haddii uu camalku khaalis yahay oo wadadii nabi maxamed ku taagan yahay sallallahu alayhi wasallam, laakiin uusan ilaahay dartii loola jeedin, lama aqbalo. saaxiibka la imaadana wajiga lagaga dhufan. camalka waxaa la aqbalaa markii iimaan uu ku taagan yahay koow, markuu ilaahay daraadii loola jeedo labo, iyo marka nabi maxamed wadadiisa uu ku taagan yahay sallallahu alayhi wasallam. يقول ابن القيم رحمه الله كلام نفيسه عجيب وحيري: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. وحيري عمل إخلاص لآنا وأن إلهي درادي لولا إيمانين اللبو نبي محمد أن لقدينين تساليهيسو ومحي وقف قندي أما كيش وطه كدمنا كبوحنا يعيد يا رمل دبرك كقاضي أو كانتفاعين. أيها الأحبة في الله، وحان تتوس وآذينا نختركي إلهي أمد الصادري ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ونهر فريسانينا وحان ويدينينا
cudurrada noocana bar horta calaamadaha lagu garto su'aalihii iyo jawaabtoodii waa kuwan wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam noo sheegayaa oo way ka dhigan tahay adigoo hor fadhiya uu ku leeyahay ma jeclaataa in camalkaaga la arko ama la sheego kadibna lagugu amaano waa lagu soo galay ogow camalkaagii dhaawac baa soo gaaray hadday calaamada isku aragto su'aal labaad oo aanu ka faa'iideysanayno nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ka dhigantay inuu na weydiinayo oo uu leeyahay ma tahay nooca dadka raali gelintooda ka hormariya raali gelinta bini aadamka intay hibleeya caroon lahayd waa saaxiibtaye arooskaygii horeba waa tii joogtay arooskan cid kastoo imaanaysa iyo boodbood iyo qoobka ciyaar kasta oo ka jira hadee waa ii caroone aan maanta raaco tusaale intuu hebel ii caroon lahaa aan camalkan sameeyo ilaahay dambi dhaafaan weydiisan haddaad arrintaa isku aragto waa lagu soo galay su'aal kale ma tahay dadka aan shaqo qabanin ilaa ay maslaxad adduun magac mansib iyo waxa la midka ah ilaa inay ugu jirto mooyeen ayaga oo waliba ku doonaya in lagu sheego oo kor lagu qaado ayadana waa lagu soo galay ogow haddaad noocaa tahay su'aal kale ma tahay noocyada markii uu bini aadam arkayana qurxiya cibaadada bixiya sadaqada qurxiya rukuucda markay keligood tukanayaanna sidii shimbir biyo cabaya qub ka siiya waa lagu soo galay aan kugu khatime u fiirso ma ku fikirtaa ma kugu jirtaa in aad ku darmato kuwa adduunka shuhrada iyo magaca ku leh si lagu qaadqaado oo meel fog lagu geeyo ayadana cudurkaas hadaad ku aragtana ogow lixdaa qodob iska ilaali أحبائي في الله أحبكم في الله إلهي درادي بان إذين جعلها aan idinku soo gabagabeeyo idinku soo gunaanado qisadan quruxda badan ee aadka u macaan ee Zaynul Aabidiin Ali ibn Hussein radiyallahu anhu wa ardaahu qissa ka dhacday wuxuu ahaa nin fuqarada iyo masaakiinta u gargaara magaalada Madiina ayuu 10 sano hada u fiirsada ayuu habeen walba markay dadku seexdaan ayuu soo kici jiray markaasuu dadka fuqarada ah dadka aan waxba haysanin dadka faramadow ee aan gacanta waxba ugu jirin ayuu intuu dhabarka raashin ku soo qaado ayuu gurigooda dhigi jiray hortiisa guriga hortiisa ayuu dhigi jiray wallahi inaynan 10 sano aqoonin cidda halka u soo dhigtay raashinka abadan waa la garan waayay laakiin maalintii uu dhintay oo godka la geliyay ayaa dadkii waxay waayeen raashinkii maalintaasay ogaadeen calimu qofkii waxay ogaadeen cidii quudinaysay ee raashinka u keenaysay inuu ahaa Zaynul Aabidiin Ali ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa dadkii dhaqayay markii ay dhaqida ku bilaabeen ayaa halka dhabarka waxay ku arkeen nabar fara badan oo madmadow markaasay waxay dhaheen talo madowgan muxuu yahay waa la baaray waxaaba la ogaaday habeen walba wuxuu qaadayay iyo cajiinkii uu qaadayay iyo raashinkii uu qaadayay inay raad ku reebtay dhabarkiisa fa subhanallah walaalayaal wa arrin cajiiba oo aad u cajaa'ib badan waxaana leenahay man wajada allaha famaada faqad qofka ilaahay haysta oo ilaahay ku kalsoon oo xubbi iyo jacayl qalbigiisa uga buuxiyay oo asaga ikhlaas uga dhigay maxaa ka maqan waman faqada allaha famaada wajad qofka inta waaya xagee buu gargaar ka helayaa mata sahha minka alwudd falkullu hayyin wa kullu alladhi fawqa at-turab turab marba xubbiga iyo jacaylka qalbigayga ku jira haduu ansaxay wax alla wixii ka soo haroodan ilaahu danka malihi وكل الذي فوق التراب تراب وكل الذي فوق التراب تراب أحبائي في الله أحبكم في الله انت أنا كل من حلقات كم معان أما كون وكلاء
waxaan idinkaga tegayaa astawdicukum allah wassalaamu calaykum.